waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a warkii ugu dambeeyey ee dagaalka etoobiya iyo madaxweynaha t b l f debretision gabriel michael oo sheegay inay qorshe la damacsan yihiin xooga ciidanka huwanta ah ee qabsaday magaalooyinka tigreega sidii sanadkii hore oo kale shabaq weyna u diyaariyeen iyo haddaba ujeedada guud ee hadalkiisa iyo dhambaalka uu xambaarsan yahay iyo dhinaca kale ra-iisul wasaare abiy oo kulan xagga telefonka la yeeshay ra-iisul wasaaraha canada iyo canada oo ah wadanka keliya ee reer galbeedka ah ee xukuumadda abiy ay ku kalsoon tahay sidoo kalena laga yaabo in ay markaasi labada dhinac ee dagaalamaya isku soo dhoweyn karto qodobada iyo qodobo kale oo caalami ayaan ku falaqayn doonaa barnaamijka kusoo dhowaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya dhinaca waqooyiga etoobiya gaar ahaan gobolka tigreega iyo dagaalada ka socda ayaa haatan waxa ay sheegayaan in ciidamada eritrea ay qabsadeen baa layidhi magaalada weyn ee muhiimka ah ee adiqrat iyo deegaano kale oo markaasi oo badan oo ku yaala wadada B20 iyagoo markaasi la sheegay haatan inay ku soo ruqaansadeen oo weliba ay ku soo socdaan dhinaca markaasi magaalada idaaga hamus oo markaa maqalle u jirta baa layidhi 790 kilomitir dhinaca kale ciidamada etoobiya iyo kuwa eritrea ee huwanta oo isla socda ayaa dhinaca koonfurta adwa kasoo leexday iyagoo qabsaday baa layidhi magaalooyinka debreganet ligamiti waxayna kusoo wajahan yihiin dhowr magaalo oo dhinaca maqale kasoo xiga sidoo kale waxaa jirta in dhinaca canfarta ee birhaale ay kasoo weerareen ciidamada eritrea baa layidhi oo markaa ay usoo ruqaansadeen dhinaca iyo maqale markaa maqale haatan waxaa la sheegay in afarta dhinac markaasi ay doonayaan inay kasoo maraan xoogaga ciidanka huwanta etoobiya eritrea waxaana u muuqataa magaalooyinkii waaweynaaye tigreega in gebi ahaanba markaasi lagala wareegay t b l f oo t b l f markaa ay dib u gurasho ku jirto haddaba guulaha ay sheeganayaan markaasi ciidanka etoobiya iyo moogta xukuumadda etoobiya inay ka gaadhay dhinaca tigreeg sheegashada ah in ay t b l f gebi ahaanba cagta mariyeen xukuumadda etoobiya ayaa sheegtay caawa in wax t b l f la yidhaahba oo awood la aanay jirin oo markaa gebi ahaanba ay ka takhaluseen oo degraded ay ku sameeyeen oo markaasi ay bila awood tahay bay yidhaahdeen oo xabad xabad ay usoo qaban doonaan haddaba waxaa hadlay isla caawa gudoomiyaha tigreega ama madaxweynaha tigreega ama t b l f debretision gabriel michael ayaa isaguna ka daba qaatay markaasi sheegashooyinkaasi ay sheeganaysa markaa xukuumadda etoobiya guulaha ka gaadhay dagaalka waxa uu yidhi guulo kumeel gaara ayay cadowgu gaadheen waa siduu hadalka u dhigay goobaha ay qabsadeen shacabka ayay ku dhibaateeyeen guushii sanad ka hor aan helnay oo kale ayaan mar kale xaqiijin doonaa way faani karaan laakiin dhulka tigreegu wuxuu noqon doonaa meel lagu aaso taariikhda ayaa marag nooga ah waxaa kaloo sheegay adigoo dal shisheeye dhulkaaga soo geliyey oo ku soo weeraray karaamo iyo madax banaani kama hadli kartid buu ku yidhi xagga abi isagoo la hadlaya shacabka tigreega ayaa ah kuwo mar kasta madax banaanida iyo sharafta etoobiya ilaaliya ayuu yidhi debretision gabriel michael waa siduu hadalka uu dhigay dhambaal dheer oo markaasi khudbad uu jeedinayey ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in t b l f haatan awood xoogan ay leedahay oo aan moogtay bila awood laga dhigin oo aan la daciifinin oo la jebinin waxaanu yidhi dhalinyarta tigreega oo dhan haatan waxay hanqal taagayaan oo marka ay maalin walba raxan ugu soo biiraan ciidanka t b l f si ay markaa goboladooda dhulkooga tigreega ay u difaacaan buu yidhi haddaba si kasta ha ahaatee hadalka uu jeedinaya debretision gabriel michael ayaa waxa uu ka leeyahay laba ujeedo ujeedada koobaad waxa weeyaan dhinaca wadahadalada haatan la qabanaya south africa lagu ka socda ayuu moogtahay dhambaal u diraya oo uu sheegayaa markaasi caalamkiibuu muujinayaa inaan moogtahay t b l f la baabiinin ee awood jirta iyo ciidan jira ay yihiin oo markaa in lagu xisaabtamo ay tahay ilaan haatan dhambaalkay soo saartay xukuumadda etoobiya maanta galabtii ee ahaa t b l f cagtana marino ma jirto
dad minis meesha cid lala gorgortamaaba ma jirtay bay u jeeday dowladdu waa in markaa dee wadahadallada wax macnaa ma laha bay u jeedeen ciidankii nala dagaalamayay awooddiina markaa ma jirta haatan markaa xukuumaddu ba talinaysa saasuu u eekaa markaa dhammaalka xukuumaddu markaa tiibuu kaga jawaabaya wuxuu sheegay inay awood leeyihiin oo in lagu xisaabtamo ay tahay hadalkooguna markaasi in golaha dee laga tixgeliye ay tahay oo xoog jira ay yihiin ilaa haddii aan xoog jiraan ahayn oo lagu qabsaday markaa awood cid loolamba ma jiro ayay noqonaysaa moogtay saa darteed waxau muujinayaa inay yihiin awood jirta oo markaa sidii sanadkii hore oo kalena ay dib u soo noqon doonaan oo markaa comeback ay samayn doonaan oo ciidanka Ethiopia ilaa iyo dee waa ku Addis Ababa cararay ma garanaysaa 200 kilomitir wax ka yar u jirsaday marka sidii kale aan samayn doonaa buu leeyahay laakiin si kasta ha ahaatee dhinaca kale wadahadallada haatan ka socda South Africa ayaa waxaa la sheegayaa marka in ay weli jiitamayaan inkastoo ay dhinacyada weliba wadamada reer galbeedka iyo moogtay midowga Afrika iyo ay dabada ka riixayaan oo doonayaan in ay markaasi wada xaajood buuxa ay noqdaan laakiin dhinaca xukuumadda Ethiopia dhalinyarada loo jeedinayo oo leeyahay marka muhiimad weyn ma saarayaan waxay ka tahay moogtay jees waayo awood bay isbidayaan baa la leeyahay dhinaca kale reer galbeedka Mareykanka ku cadaadinayaan oo moogtahay ay maadaama Mareykanka ku eedeynayaan iyo wadamada kale ee midowga Yurub inay la jiraan TPLF-ta haddaba wadahadalladaasi si ay rajo u yeeshaan oo midho dhal u noqdaan waxaa loo baahan yahay markaa dhinac dhexdhexaada oo moogtay labada dhinacba ay ku qanci karaan midowgii Afrika TPLF kuma qanacsan waxay leeyihiin Abiy bay u hiilinayaan moogtahay South Africa laftarkeedu dhinaca Abiy bay raacsantay leeyihiin oo dhinaca Ruushka iyo jirta South Africa si ognahay oo ay taabacsantahay dhinaca reer bariga haddaba waxa haatan ku soo biirtay waddanka Canada waa waddanka kaliya ee haatan wadamada reer galbeedka kala sheegayo saaxiibka uu leeyahay Abiy way kala dhinteen reer galbeedka oo dhan waayo moogtay dhinacyo badan bay isku hayaan waddanka kaliya haatan haddaba saaxiibka yihiin waa Canada sababta ku saaxiibeen wax kala ma aha waxa weeyaan waqtigii reer galbeedka cunaqabataynaha saarayeen ee moogtay aad ka dhuleecinayeen labadii sano ugu dambeysay iyadu dhexdhexaad bay ka ahayd Canada faraha lama gelin Abiy moogtay tallaabo kamay qaadin waayo maalgashi fara badan bay ku leeyihiin jacayl ay u qabaan maaha maalgashi fara badan bay ku leeyihiin Ethiopia macdanta badan ee buuraha ku jirta Ethiopia ayay moogtay aad u maalgashadeen xitaa dhinaca Tigreega ha u badnaatabe labada dhinac midna faraha lama gelin Canada way ka aamusneed waxa ka socda sidaa darteed waxaa haatan markaasi telefoonka kula soo xidhiidhay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau Abiy Ahmed bis wada hadleen Abiy Ahmed waa kii soo dhigay Facebookiisa isagoo aad u amaanaya leh wax qabad productive wax soo saar wada hadal productive buu yidhi oo wax soo saar keeni doono horumar leh ayaan la yeeshay ra'iisul wasaare Justin Trudeau Canada saa darteed aad buu ugu faraxsanaa horta wada hadalladaas dhinaca kalena xukuumadda Ethiopia Canada waxay uga baahan tahay reer galbeedka oo kun cunaqabataynaha saaray markaa xukuumaddii Abiy financial crisis ayaa moogtay lacagtii qalaad baa ka dhamaanaysa Ethiopia marka waxay u baahan tahay marka in ay hesho saaxiib adag oo moogtay deymo fara badan iyo waxaan moogtay problemkan ay ku sameeyeen cunaqabataynaha saareen reer galbeedka dul qaada saa darteed Canada waa waddanka kaliya haatan waxa la leeyahay labada dhinacba ay ku kalsoonaan karaan haddaba caawa waxa uu kici timay dhinaca iyo Canada sidoo kale Musa Faki gudoomiyaha midowga Afrika si markaasi arrimaha Ethiopia wala hadlo waxaa laga yaabaa wada hadalladan South Africa lagu qabanayo in halkaa loo raro Canada oo moogtay arrinka halkaa lagu dhameeyo maadaama Canada labada dhinacba saaxiib la tahay bal wayna eegi doonaa barnaamijkan intaas ku dhayeeyay tan iyo kulantiina dambe nabadgelyo